waxaa maanta magaalada Gabiley xarunta gobolka si ballaaran loogu soo dhaweeyay barasaabka cusub ee gobolka Gabiley Cabdikariin Maxamed Aadan Diiriye oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay xilka waxaana kantaroolka bari ee magaalada Gabiley kaga hortagay maamulka degmada salaadiinta cuqaasha haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana waftiga barasaabka cusub la socday xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland soo dhaweyn kadib waxa xalfad bilan loogu qabtay xarunta dawladda hoose ee degmada Gabiley waxaana ugu horeyn hadalkayba furay oo soo dhaweeyay salaadiinta iyo maamulka degmada Gabiley waxaana soo dhaweeyeen barasaabka cusub halka ay sii sabootiyeen barasaabkii hore Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ee loo magacaabay gobolka Saraar waqti wanaagsan baad ku soo beegtay waxaan kugu sabooteynaa wanaag iyo kalgacal iyo qiimo wanaagsan oo agteeda ku leh barasaabka cusub oo aanu saaxiib khaasan nahay ee haw aad iyo aad dhibaatooyin fara badanna kaa soo mareen iyo sidaad u gudatay ma ilaawano waanu kuu haynaa gobolka ولماذا عقاشة بعض الصحافة وفي شرف كرامة يشرف القلة هذا وين شرفت هي قيمة عليه درس سابقة سلع قيمة عليه لو يقيمني وسوق قلبي هل كان يقول هذا وقته محمد عثمان برسا في هو آدي ألبا مسروتينا آدي ألبا بو أمانينا كالقعين بانو كل بدقليينينا دعانا وانو كراعينينا إلا يريق بلا حيه إلا يريق بلا ونكسيه عينمات كقرضوا تركاتك وحوها تير كوينة كتاقتها وانا نكسبنا عبد الكريم كانت وهي إنه اسمها قبط عبد الكريم وحلايا آلي أبرا ما تطيع وشي ويلي لوقع يسيها القرب وحنا نرجينا إلهي سبحانه وتعالى إنه كنودا ربنا وما تسقي ربنا من السوداوية وفتك بدونها قبلك هي وفتك وفقامين اليوم أي برساب كده عصب السوداوية وهرين دولي هراء قبلك أو دوليها قبلك سرار يا بنوس السعودية مدري لبضة صناعية لبضة بالوضع هاي أو قبلك كشقيني لكن ده عبد الكريم قيمه عكا كشريتين قبل لما دي بهني عيال كبير يا بنو إذا كدر دارنا أنا كاسي وحوي إلى نقاط طنطا قلوب تاريخية وهمتي حركة السمارينو هذا يدنا هذا وني بدونتا وحتى يصير فرصة كعنتا وهمتي يسوون صدحاتنا وحنا يا مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن موسى بيثي عبدي حلكا يدو آمني إلي بمدي قبلك جبيلي أما قبلك عقارا waxaad xalee oo meesha hada dhameeyay maanta xilliga maayay farsaafka cusub waxa isaga wada u sheegay maanta waa dardaro oo oranaya kii barasaabkii horena maxay ay waasii sabootay naasi hore hadda sunaha dawladeed weeyii in xilka maalin qof doonaya inuu wareejiyo waa dawladnimada ay keenaysaa waxaan leenahay barasaabka cusub gudoomiye ku soo dhawo gobolka gabagabadii halkaasi waxaa xilka u kala wareejiyay wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka amniga Khalid Maxamed Daahir TV-ga Badda Cas Gabiley markasta meel kasta iyo waqti kasta Badda Cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan Badda Cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka Badda Cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso